يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يسرع عبد الرحمن عبد الله waxay codkeeda qurxoon ku akhrinaysaa Quraanka Kariimka qowlkii Eebe. halkan iga dambaysa waxa lagu akhrinayaa Quraanka Kariimka qowlkii Eebe iyadoo ujeedada ardayda goobtan loo keenay ay tahay in ay si degan wax u bartaan oo ka bedelan qaababkii hore oo ardayda ay wax uga baran jireen dugsiyada Quraanka Kariimka. kadib waxay kamid tahay tan iyada lafteeda nicamka Ilaahay tabaaraka taala imisa gabar adduunka joogtan Quraanka Ilaahay garnay imisa dumar adduunka joogtan kitaabka Ilaahay hataa sida loo kala bixiyo waxa ka akhrin kari waxaan boqonay mid kamid ah dugsiyada lagu barto xifdinta Quraanka Kariimka iyo culuumta diinta kuna yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. madrasada Mus'ab ibn Umayr ee xifdinta Quraanka Kariimka waa madraso diini ah waxaana dhigata arday tiradoodu ay kor u dhaafayso 250 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. ujeedka aan sheekadan u soo gudbinayno ayaa ah qaabka ardayda aan boqonay ay wax u bartaan. badi ardayda dhigata madrasada ayaa ah qurba joog u badan gabdho daayir ah waxaana macallin jaamac iyo kooxdiisa ay ku dadaalayaan sidii ay deganaan wax ugu bari lahaayeen maadaama ay yihiin jiil aad u daayir. hadda marka inta ka baxna qaybta xayawaanka gali doona bi idilaahi tabaaraka waxa loogu yeero trip ayaa loo kaxeeyaa sanad walba si ay u dareemaan nasiino ardayda ayaana ah kuwa ku faraxsan qaabka ay u socoto hawlaha ayaga wax lagu barayo. balaan soo laabana Yusro oo ahayd gabadhii aad codkeeda ku maqashaan bilowga muuqaalkan waxayna noo sheegaysaa qaabka ay wax u barato halka ay ka timid iyo in ay noo akhriso Quraanka Kariimka qowlka Eebe. macallin jaamac macna fiican waaye waa ku faraxsanahay Quraanka iyo xifdiye alxamdulillah ilaahay ma hadiisa Quraan waa dhameeye waxa ka imaaday Mareykanka Quraan waa xifdiye waxyarna waxaan rabaa inta Quraan akhriyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. cabsi iyo walwal kama qabaan in uu dhibaato u geysto macallinkooda haddii ay casharadu ku adkaadaan waana qaab ka duwan qaababkii hore oo ay wax uga baran jireen dugsiyada Quraanka. macallin jaamac Abu Asil Xalani oo ah maamulka markas Mus'ab ibn Umayr ayaa noo sharaxaya. runtii ilmaha siday ku ogolaadeen in ay intaanu caruur dhigtaan markaska ayagoon wax problem wax dhib aan wadanin runtii waxyaabo badan oo runtii aan sameynay jiro oo ilmaha keeni karta inay runtii ogolaadaan oo Quraanka bartaan oo Quraanka xifdiyaan waxa kamid in runtii garaaca iyo macallimiinta waxyaabo badan oo ilmaha aad ugu sameeyeen oo ka didaan annaga aan runtii ka taxafudno oo ka ilaalinay oo ilmaha waxba yar yar oo runtii waalidka aan dib u keenin caruurta waxba aan dhibaysanayn mooyaane inaan ka ilaalin ilmaha dilka tan kala runtii aad baan u ilaalinaa caruurta waxyaabo badan oo rabaan waan u sameeynaa waxa kamid ah tripkaas aad u jeedaan wadna oo ilmaha aad u jecel yihiin arimahaas ayaa runtii kaga bedelana dugsiyalka qaarkood marka la fiiriyo dugsiyalka dhanna waxaan ugu ku baraarujinay macallimiinta dhammaan inay ilmaha sida u dhaqmaan. Mus'ab ibn Umayr ayaa sidoo kale leh qayb dugsi hoose dhexe ah oo lagu magacaabo Mus'ab Educational Center waxaana ay ku jiraan madrasooyinka ugu horeeyay ee xaafadda Islii laga hirgeliyay. Kaynaan Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta Dalsan Nairobi.